Dadweyne cadhaysan ayaa dibadbaxyo ka dhigay safaaradda Faransiisku uu ku leeyahay caasimadda dalka Cameroon ee Yaounde, waxaanay ka cadhaysnaayeen hadal ka soo baxay madaxweynaha Faransiiska oo ay ku tilmaameen inuu ku aflagaadeeyay madaxweynaha Cameroon Paul Biya, waxayna arrintani ka dambeysay kadib markii baraha bulshada lagu baahiyay muuqaal muujinaya madaxweyne Emmanuel Macron oo sheegaya in madaxweynaha Cameroon uu ku cadaadiyay inuu xabsiga ka sii daayo hogaamiyaha mucaaradka dalkaas Maurice Kamto. Waxaan toddobaadka dambe u yeedhayaa madaxweyne Paul Biya, waxaanan saarayaa cadaadis xooggan si xaaladda loo dejiyo, ayuu Macron u sheegay mid ka mid ah dadka u dooda xuquuqul insaanka. Madaxweynaha Faransiisku waxa uu sheegay in Cameroon ay ka taagan tahay dhacdooyin ka dhan ah xuquuqul insaanka, isla markaana aan la aqbali karin. Wuxuuna hadalkiisu imanayaa maalmo uun kadib markii 22 qof oo rayid ahaa ay dabley ku labisnayd rayska militariga ay ku dishay tuulada Nagarbo oo ku taal waqooyi galbeed ee dalkaasi.